الله ونحريسه محمد باشا حاجي حسن سندكii 1963 ayuu ku dhashay dureedka magaalada Buhoodle waxaana barashada Quraanka uu ka bilaabay degmada Beledhig oo ku taala koonfurta gobolka Togdheer halkaas oo sidoo kale uu ka bilaabay waxbarashada dugsiga hoose waxaana la keenay magaalada Hargeysa oo uu ku dhamaystay waxbarashada dugsiyada hoose dhexe isagoo dugsigii sarana ka baxay Faarax Umar oo ku yaala magaalada Hargeysa sanadkii 1983 ayaa waxa uu ku biiray jabhadii SNM waxaana uu ka mid ahaa wariyaashii ka hadli jiray idaacadii jabhadda ee halgan oo fadhigeedu ahaa magaalada Addis Ababa sanadkii 1987 ayuu waxbarasho jaamacadeed ka helay dalkii loo oran jiray Czechoslovakia isagoo shahaadada koowaad ee saxaafadda ka qaatay jaamacadda The Charles University ee magaalada Prague isla jaamacadaasi ayuu ka qaatay shahaadada labaad ee barashada saxaafadda sanadkii 1992 ayuu u guuray magaalada London waxaana uu la shaqeeyay qaar ka mid ah warbaahinta Soomaalida oo isugu jiray wargeysiyo iyo telefishanno Maxamed Baasha Xaaji Xasan Allah u naxariistay waxa uu ahaa nin aqoon durugsan u leh fanka suugaanta iyo qoraalka af Soomaaliga marka ugu horeysa ee awrka rarka loo soo fariisiyo ayaa waxa lagu yiraahdaa oo ay dumarku ugu heesaan suubane sidan ku raro saakaba la ogaan markalana iyada oo dhaxanta wax uga gelinaysa oo dhar u xidhaysa sidii markaasi ilmo yar oo caruur ah ayaa waxay oranaysaa dhogor yareedada qubatee balan dhaxanta kaadedo markalana waxay leedahay haylaalow heriyadu hugaa weeye ma kullaba hagoogayo had ma ku sameeyaa ayaa salaam intii magaalada London uu deganaa waxa uu qoray dhowr buug oo uu ka qoray ragii fanka iyo suugaanta magaca weyn ku yeeshay buugaagtaasi ayaa waxa kamid ah Halan Tabayay oo uu ka qoray Xaaji Aadan Axmed Afqalooc halka Haleel oo uu ka qoray Maxamed Ibraahim Warsame Hadraawi iyo haltis qaaday oo uu ka qoray Cali Sugule Cigaal Dun Carbeed waxa kale oo uu qoray laba buug oo la kala yiraahdo Afka Hooyo waa Hodan iyo Guri waa Haween Maxamed Baasha Xaaji Xasan waxa uu kamid ahaa aqoon-yahanadii taageeray xisbiga talada haya Soomaaliland kulmiye doorashadii sanadkii 2017 laakiin sanadkii 2018 ayuu ka soo horjeestay xisbigaasi horaantii sanadkani 2020 ayaa magaalada London waxa uu kaga dhawaaqay dhaqdhaqaaq siyaasadeed oo uu bixiyay mar kale midnimo oo ugu ololeynayay in Soomaaliland mar kale ay la midowdo Soomaaliya oo ay ka goosatay sanadkii 1991